xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sanadihii u dambeeyay dabar jari lahayd cadawga saboolnimada loona gaarsiin lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan horumar waara nolol degan iyo jawi xasiloon ayaa waxay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya xoogga saartay hirgelinta barnaamijka dib u dejinta ee la yiraahdo biyo baad beero cilmi iyo caafimaad marka la soo gaabiyana loo yaqaano baabaco waxaana xaqiiqaha inuu kaalin la xad la ka qaadan doono mashruuca dib u dejintan cadilista saboolnimada haddaba mashruucan dib u dejinta oo ay xukuumaddu ka hirgelisay guud ahaan deegaanka ayaa waxaa hubaala in sidii loogu talagalay looga midho dhaliyay haddaba maamulka degmada Feerfeer oo ay weheliyaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Shabeelle ayaa si rasmi ah u bilaabay dejinta dadkii danyarta ahaa kuna wareejiyay guryihii gobashii iyo agabkii cuntada xoolihii iyo waliba dhul beereedkii loogu talagalay dadkaasi dib u dejinta ee degmada Feerfeer ugu horeyntiina waxaa goobtaas hadal ka soo jeediyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeelle mudane Nuur Xayir Qaasim loogana warbixiyay ahmiyadda ay u leedahay dadkan dib u dejinta ay ku wareejiyeen guryihii agabkii iyo xoolihii iyo waliba dhul beereedkiiba waxaan joognaa degmadii Feerfeer degmada Feerfeer waxay dejinaysay 40 qoys maanta waxay bilowday inay soo dejiso dadkii ugu horeeyay ayadoo loodii iyo arigii iyo beertii iyo u diyaarisay ayaa muxuu ahaa waxay wada maanta inay bal xoolihii in ay iyo agabkii loogu talagalay inay tara kabsiiso shacabka iyadoo qoysasku horeeyeen hadda aan goobjoog kala nahay iyadoo muxuu ahaa ay degayaan dadkuna ay ku faraxsan yihiin inay muxuu ahaa ay degaan geestoodana waxaa iyana si wada jir aan ugu faahfaahiyay barnaamijkan dib u dejinta ee degmada Feerfeer ay ku wareejiyeen dadkii danyarta ahaa gudoomiyaha degmada Feerfeer mudane Maxamed Cabdi Cabdullaahi iyo madaxafiiseedka xafiiska maaliyadda horumarinta iyo dhaqaalaha ee degmadaasi Feerfeer Marwa Ruqayya Ismaaciil Cumar runtii markaan fiirino qorshahan baabacada waa qorshe aad u ballaaran oo xukuumaddu ay la fadhiyo uga dhigtay sidii maaragtay bulshadeena xoolo dhaqatada u dhigay xoolo dhaqato beerley isla markaana looga saar lahaa saboolnimada runtii waxaan qaadanay qorshe guud oo 40 guri ah oo nooca bulkeetiga casriga lagu dhisayo guud ahaan anaga degmada Feerfeer waa soo gabagabeynay 40 guri waxa kale oo diyaar u ah dhulkiiba diyaar u ah maanta marka waxay leeyahay mahadiya in xoolihii oo diyaara dadkiina maanta dejintii aan mataqaanay dejinayna maanta xagan aan ku suganay waxa weeyaan baabacada degmada Feerfeer taasoo aan ka fudinayna qabalaha abaale qorsheena aan fudinayno ee baabacada wuxuu ahaa dhismaha qoysaskan dejinay 40 qoys taasoo saad aragtaanba maxaa la yiraahdaa aan dhamaystirnay dhismihii iyo guryaha iyo filimloodyadiiba taasoo maanta ay tahay maalintii aan ku wareejinay qoysaska sidaad arkaysiinba iyagoo aan ku wareejinay agabkii iyo xoolihii lo'dii iyo arigii biyo gelinta already sidoo kale iyadana way dhammaystiran tahay dhankoodana dadkii danyarta ahaa ee lagu wareejiyay guryahan agabka xoolaha iyo waliba dhul beereedkii oo aan la wadaagnay dareenkooda farxadeed ee ku wajahan agabkan iyo guryaha lagu wareejiyay ayaa noo sheegay waxaan lagu wareejiyay xoolihii oo dhammaystiran beerihii oo dhammaystiran daawadii beerta oo dhammaystiran waxaa lagu wareejiyay dhammaan wixii dhammaan maacuuntii guri dhamaadsan lagu wareejiyay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya way maxsan tahay Jilaan Cabdi Nuur telefishinka caalamiga ee STV degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle.